waxaanu ku trade gareynaynaa akoonkan oo ay ku jirto balancegiisa sida arkaysaan $134.62 lacagta dahabka weeye maantana taariikhda waa 13 August 2025 marka muhiim maaha suuqani markaa joogto si ay income u samaysid ama lacag uga samaysid inaad huge capital haysatid ama dhaqaale badan inaad haysatid dhowr kun oo dollar $100 inaad haysatid akoono waaweyn akoono fundare waxaasoo dhan muhiim maaha laakiin muhiimadda waxay tahay in aqoonteeda aad leedahay khibradeeda aad leedahay sidoo kale aad deganaan muujisid iyo dulqaad balaan aad leedahay balaankaaga aad ku trade garaysid inta ugu muhiimsan waa intaa 4 hourka CRT fiican buu ii sameynaya gaabna wuu joogaa suuqa 1 hourka liquidity-ga suuqaada suuqaba waa liquidity iyo gaab wey ani strategy aad ku trade garaysid labada haddii aad master garaysid waa nice waxaa aaminsanahay inaa suuqa waxa way guul fiican aad ka gaaraysid gaaraan weliba lacagtan goldiga marka sida arkaysa hadda taartiga wuu xirmi rabaa saan hadduu inoogu xirmo waa very good runtii ugu yaraan waxaan u baahanahay inuu hoostaan inoogu xirmo kanalkaani taartiga insha allah inuu gudaha inoogu xirmo aad bay runtii u qurux badnaan doontaa sidoo kaleeto haddaynu fiirino 15ka isagana waa arkaysaa waxa weeye isagana liquidity-gana lasoo sweep gareeyey 5 minute-ka markaynu fiirinana waxaanu helaynaa dhaqaaqani marka kanalkan hadda inoo xirmaya ha inoo sameeyo waxaa la yiraahdo ha inoo sameeyo insha allah bullback-taas yar kadibna next aynu soo qaadano insha allah 5ka fahmaysaa okay good marka hadda taartiga haddaynu ku laabano muhiim waxayna inuu taartigaasi u gudaha inoogu xirmo insha allah okay sida arkaysaan hadda waa xirmay kanalkani marka guduhuna noogu xirmay si fiican intaa inii sheegay so 5ka toos automatically trade-ka waan ku jirnaa insha allah waa iga horbooday anyway salka insha allah waa ku jira asalkayga wuxuu noqon doonaa insha allah 20 bibkaasi and I will target insha allah 40 bib to ararkaas ka rabo insha allah that's it so trade-kan intrigana waa kan sal fiican ba insha allah inoo noqon doonaa biidnillah TB1-kana insha allah wuxuu inoo noqon doonaa halkani weliba waxaan rabnaa inaan trade-kan insha allah lacag fiican aan ka sameyno so I wish inaan lotka xitaa u weyneeyo kanalkaas horta wiilgaan soo qaato marka uu isu soo taangareeyo insha allah okay very good so waxaan ku dari doonaa 0.03 okay laba lot baa ugu jiraa UC aynu isla aragno insha allah haddii aan los qaadanayo insha allah yani 15% ka badan oo losa ma rabo biidnillah haddaan ugu bato 16% camal oo losa ayaabaan insha allah qaadan doonaa hadduu trade-ka los ina siiyo haddii profit noqotona dee waa sii daysanayna insha allah profit fiican baa ka rabnaa trade-ka ilaahay waa mahad iska leh sida arkaysaan trade-ka los uu igu qabtay hadda loska wuu naga soo saaray si fiican suuqa TB1-keenu u socdaa marka sida ayaynu maaragtay dareenkeena inuu u controlaynay oo aynu trade-ka u haysanay inagoo imagine garaynayna inuu loska naga soo saaro markii uu loskaynu waayey si lamida waa inaan haddana maaragtay emotionkeena u adkeynaa oo aynu u sugnaa trade-ku inta uu full target ina siinayo marka hadduu TB1-ka gaaro only insha allah waxaa samayn doonaa inaan break fan gareeyo laakiin wax faa'iidaa kama xiri doono waxaa doonaya insha allah full TB inaan helo 40ka bib labada lotba ee aan suuqa ugu jiro biidnillah marka waynu isla arkaynaa insha allah hadda weli TB1-ka maanu si fiican u taabanin so good hadda kanalkan si fiican buu ku furmay waa very nice marka isaga TB1-ka wuu tegi doonaa markaasaa insha allah break fan gareynaa ma fahanti so alxamdulillah saa inii sheegay waa kaasaa kanalka isaga ina geenaya waa ku dhahay TB1-ka sidii buuna sameeyey suuqa marka hadda trade-kan waa break fan insha allah but waa hayn doonaa biidnillah labada lotba waa ku hayn doonaa ilaa full target helaya biidnillah trade-ka waa ujeedaan macnaha long time kadib waqti aad u dheer runtii oo aan sabrayay laba jeer intii TB-gayga la yimaada labadii jeerba laga laabtay sida arkaysa this one labadan kanalba marka hadda bal trade-ka waxaan rajeynaa macnaha kanalkan inuu TB-gay siiyo insha allah at least $35 camal inuu geeyo oo meesha ku close gareyn doonaa insha allah goyaanba trade-kan okay that one waa good 34 good wixii loo sabraa saaxiib leelaya soo ma fahmin $40
dhaqaaqaada qurux badan so khayr badan baan ii rajeynayaa tradeki lifekana waa kaasa taana insha allah caddayn ha kugu noqoto iyo dhiirigelin inaadan lacag badan u baahnayn si aa suuqan aad lacag uga samaysid